eebbe naxariistii jannaha ka waraabiye waxa xabaalaha halleeye duleedka magaalada Hargeysa lagu aasay Faadumo Cismaan Aadan oo saaka loo ballansanaa in meherkeedu uu ka qabsoomo mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa balse ay u timid tii xaq ahayd ehelka iyo qaraabada marxuumadda ayaa telefishinka Hoonkeyba la wadaagay tacsida magacaygu waa magac la ku qoran waa Cabdifaarax Ducaale waxaan ahay inkii xafladda meherka ku soo casuumayay labada beelood inta kala guursanayay xalayto kaarkii baan kala qaadanay nabadgelyan ku kala seexanay waxay ahayd in saaka meherku 10 ka dhaco sagaalkii baan lagu wargeliyo leeyahay wargabadhiiba waa meedo waxay taalaayeen dhakhtar halka kana mucjisada markaa dhacday waxaan leenahay ilaa ilaa waa inay raajicuun inanta waxaan leenahay ilaahay jannada firdawsaha geeyo ilaahay ehelkii ka tagtay ehelka khayr badan ha u geeyo ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo inanka oo aan adeer ahay oo ay ahayd inaanu saaka u gudoono aqalka ka taagnaa baanu saaka kala gudooman lahayre inankana waxaan leenahay ilaahay jannada isagana sabir iimaan ilahay siiyo ilaahay sabir iimaan ha siiyo ilaahay sabir dhamaanteen ilaahay sabir iimaan ilaahay inaga siiyo sidii aqalku sheegayay waa ibra qaadasho waxba dadka lagu tusaya warba ilaahay laga cabsado wada aragtaa naftu intay jirto inta saaka la guursan lahay caawa aqal adduunyo gel lahayd aqal aakhirey ku jirtaa Allah laga cabsado ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dambigeeda inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa midda adduunyada ka khayr badan ilaahay inuu siyan ka baryaynaa geerida maanta dhacday waa geeri xaqa qof kasta oo bini'aadamina uu fili karo oo uu sugayo inuu maalin maalmaha ka mid dhimanayo waxaynu ognahay bini'aadamku inaanu ogeyn maalintu baxayo waxaynu ognahay daqadda liqayna inaanu ogeyn haddaynu ognahay waa ka taalushaysan lahay geerida maanta aynu joognaa waxay geeriyada xaqa ee yimaada kaga duwantay waa mucjiso gooniya waa mucjiso inantaa waa la soo doonay waa loo soo geed fadhiistay maanta sagaalkii subaxnimo ay ahayd in la bixiyo oo gurigii ay ku hamiyeysay muddada dheer ay tagto oo arsaaqid iyo ubad labadaba ilaahay ku siiyo ta ilaahayna meel bay taal qadarkuna wuu qornaa sida maanta ayaa qorayd waxaan nuu soo kalaano nuu soo toosnay aruuskeedanu ka qayb galno bixinno oo guurinno markaanu soo baxnayna aaskeedii baa naloogu yeedhay maantana waxaa joognaa aaskeedii arrintaasi waxay u baahantay mucjiso weeye cibro qaadasho bini'aadamku inay ku cibro qaataan dunidu inaanay macnaba lahayn adduunyadu inaanay macnaba lahayn inay ku cibro qaataan oo labadaasi intay isu jiraan eega saacadaa u dhaxeeyey xilligii la guurin lahaa iyo xilligii lagu tukaday jinaasadeeda saacadaa yar baa u dhexeeya waxba may qabin dhib may qabin xalay un baa lagu soo booday saaka wayska ladnaan baa la lahaa hawsha lama baajinin diyaar baa loo ahaa diqad aaskiina imka way nagaa joogna marka waxa weeye dadka waxaa ugu sugan oo keliya oo halkan maanta ka ah in lagu cibro qaato oo qofku intuu adduunyada joogo gooruu baxaya ma oge in uu ku tala galo inaanu daqiiqad dabadeed wuxuu mudan doonaa aanu ogeyna uu ilaahay cabsidiisa iyo ku xidhnaantiisa iyo cibaadadiisa iyo weysadiisa iyo alla ka cabsigiisa inuu badiyo cibro ku qaato inay baash meelba jirin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aan ilaahay ka baryaynaa ilaahay jannadii geeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inta ka tibina ugu dambi dhaafo idinkuna waxa ogaataan saacad la isqabanaya ma jirtee war salaada iyo cibaadada iyo ogaada dacwadana ogaada diintana ogaada salaad iyo weysadana ogaada dhalinyaro badan baa halkan taagane waxaan waar idinku dardaaranaa waar qof oo saacad lagu qabanay ma ogide waar adigoo salaad la oon ilaahay caabudan dhulka wajiga u dheeyaad dhiman oo lagu qabanine ku fakir saacad lagu qaban ma ogide sidaas oo kale u dhacaysaa inaanad meysadaadu ka qabino ilaah cibaadada ilaahay ku xidhnaato salaam alaykum magacaygu waa Mubaarak Cali Shamaaxiye waxaan ka mid ahay family-ga inanta Faadumo Cismaan Aadan runtii waa geeri naxdin leh oo hawsheeda wadatay ayay ahayd kullu nafsin daa'iqatul mawt summa ilayhi turjacuun geeri naf kasta geeri bay dhadhamin doontaa insha Allahu tacaala inanta maanta waxay ahayd farxadeedii bay ahayd waxay ahayd maalintii meherkeedu qabsoomi lahaa ayay ku beegnayd runtii sidii ay hawshu u socotay ee ay diyaarka ugu ahayd inay waxa weeye hawshu maanta qabsoonto ayaa waxa ku soo booday faalugaasoo sababay geerideeda waxa weeye maalin aad u xanuun badan oo waxa weeye dareenkeeda leh oo hawsheeda wadatay ayay ahayd Faadumo waxay ahayd
inan aad u qiimo badan oo waxa weeye ehlu cibaado ah waxa weeye xanuunkii geerideeda waxa sababay faalu ku soo booday xalay markay seexatay kullu nafsin daa'iqatul mawt summa ilayhi turjacuun ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannooyinkiisa ku casuumo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun faadmo cismaan aadan faamiligii baanu nahay waxa dhacday daraad baanu isbarannay reerkii inanta aanu siinaynay markii aanu isbarannay ee arrimihii noo dhammaadeen maantoo sabti ah aannu u ballansanayn inaannu inantii bixinno 9kii barhkaannu hodheel ku ballannay markii kaadharkii la qaybiyey inanta aabbaheedna ila soo hadlay ee uu ii sheegay xalay baannu wada hadallo wuxuu inantii way xanuunsanaysaa saakaannu haddana wada hadallayoo wuxuu yidhi inantii insha allahu tacaala way iska ladnaan doontahay hawshii inaynu dhammaysanaynu ku rajo weyno waynu dhammaysanaynaa hodheelku waa naloo soo ballamiyey waa la soo ballamiyey hodheelka markii aanu markaa damacnay inaannu kaadhkii la soo qaybiyey aanu hawshii damacnay inaan u diyaargaroono ayaa tii ilaahay timi qadarkana ilaahay baa iska leh gurigeedii xaq ahaana way tagtay idilahaanteenba waynu u ducaynaynaa ilaahayna waxaynu uga baryaynaa beddelkeedoo khayr qaba inuu ilaahayna siiyo ilaahay beddelkeedoo khayr qaba hayna siiyo waalidkana qalbiga ha uga reebo iyo inankaa doonayeyba qadarka ilaahay unbaa adduunyada tan ka soconaya marka dee wax kastaa way dhacaanoo qadarkaa ka weyn wax kastaba ka weyn ilaahayna waxaynu ka baryaynaa idilahaanteenba iyo intii dhimatay iyo intii naga horraysay iyo faadmana inuu ilaahay u naxariisto ilaahayna qalbiga waalidkeed uga reebo beddelkeedoo khayr qabana siiyo inankii ay isdoonayeen ismehersadaanna isagana khayr baanu rajaynayaa qadar baa ka adeegay khayrna waanu rajaynaa insha allahu tacaala ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo waxaynu joognaa aaskii marxuumad faadmo cismaan oo saa ku geeriyootay magaalada hargeysa 2 habeen ka hor ayaan maqlay in guurkeedu dhacayo oo uu guursanay inaan saaxiib nahay oo la yidhaahdo khaalid xalayna waa laygu soo celiyey telefoonka saaka 8 barhkii anigoo diyaargaroobay oo isla xaggii tag huleelka ayuumaan facebooka tacsi ka arkay kadibna waxaan gashay khaalid iyo huleelka uu ka dhacayey meherku geeri naxdin la weeye waxay muujinaysaa sida bini'aadamkuna qorshe u leeyahay qorshihii ilaahayna meel ugu yaallo inaynu ku cibro qaadanno oo aynu aakhiro u diyaargarowno ayay nagu baraarujinaysaa ilaahay qoyskeedii iyo cid kastoo jeclayd cid kastoo ay jeclaydba samiir iyo iimaan ha ka siiyo geeridii faadmo cismaan aadan oo aan ka eegayey maanta xalayto lay diyaargareeyey inaan lagu keenayo kaarhkii geerideediina ay saacad 4 saacadood dabadood lay soo sheegay waxaanu halkan uga soo ducaynaynaa samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo waalidkeedii cismaan aadan iyo hooyadeed iyo dhammaantood ehelyaddii iyo inankii maanta aanu doonaynay maanta in meherku ka dhaco isigana samir iyo iimaan dhammaanteenba ilaahay ka siiyo isiga ayadana jannadii firdowsa ilaahay geeyo godkeedii bay tagtee wada mahuraan baynu nahay samir iyo iimaan dhammaanteen samir iyo iimaan waalidiinteedii dadkeedii iyo ehelkeedii iyo dhammaantood aabbaheed iyo hooyadeed iyo ehelkeediibana ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ilaahu wa innaa ilayhi raajicuun inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun goobtan aynu joognaa waxa weeye geeridii aaskii faadumo cismaan aadan dheeg ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiye dhammaanteen weliba annagu ah faamiligii iyo qoyskii hay ka soo jeeday faadumo weliba gaar ahaan awowo cismaan baan aad uga tacsiyadaynayaa gaar ahaan waxaan uga sii tacsiyadaynayaa reerkii nagula xididayay iyagana dhammaantood iyo reer somalilanba dhammaantiin sidaa wada maqlaysaan dee waxaa maanta diyaar ahayd meherkii inuu dhaco hase ahaatee qadar ayaa ka adeegay waxaanu leenahay ilaahay qabriga ha nuuro dhammaantiinna samir iyo iimaan hayna maxamed suldaan telefishinka hon cable hargeysa